ولا لا غالية سود وادا ملك استوى عالم كجوتين حلي كستوى يدين تهاي وحان منكم سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان يدين رجينا يا عافمد قبتام وأوذي أوغينها عمران عبد الرشيد يوسف ما أنت محيدين وذا مقال كان إلا داو انت عن برنامجك درخ عن بهم meelaha qaladaadka uu ka yimaadana waxay tahay dadka waxay u soo hormariyaan naarta sida ay wacdiga u wadaan waxay yiraahdaan naar baad galaysaa ayagoona jannadii u sheegin qofkii marka isla markii wuxuu sameeyaa uu isaga baxaa marka wacdigii dhamaaba naar hadiiba la sheego wuxuu leeyahay hooba naar galaasay teamboy toosad u sii galaysaa marka sida loo xakameyn karaa waxay tahay in si degan wax loogu sheego annaga mar walba أوصل نقولنا مخالك عسيتو حتى بس إذا علوم هذا وش يجان ضدك مركي وش يجاين برنامج كان هذا كل شيء ربو وحكى عسنا يا شيخ التيك توك إن أبو قرطي يوتيوب كم كعشة شيخ التيك توك أبو قريسان شيخ التيك توك أبو قريسان أنت أبو سو قرايا مركز وكيه اللي سكدي بيوتيوب كا برنامج كان لجيسو في عنو لجيسو أنا أصلا ما يستلم مستوى قاعدة كرسالته وقت يا إيسا ميحين هلا هنير أكاد دوسين يا سيدة وش يجان علماء مركي ومدة وش يجاين إنه صاروا دائر يدلير ممسوخين وأن ديننا عنكو هينين الدون أن عنكو هينين آخرنا أن عنكو هين خلاصة وقدام بيصير نتيجة هدي اللي إلى أين نتيجة هالكاسوة محاين لقد بون مركا أفدا إن هيسته علماء uga bixi doona insha Allah ta'ala maxay nagala gudboon qaybo kale oo gaabiyeen iyaga ka hadli doona insha Allah ta'ala ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo allahna ina xifdiyo daa'irta iyo dhalinyarada khaasatan rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba allah inoo xifdiyo fitankan allah inaga ilaaliyo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi shaqumul barnaamijka haluhu ku soo qatimaya bisa ka soo qaatay haluhu ku soo qatimaya waa arkayseen inuu ummadii u duceeyay dhalinyaradii u duceeyay wiilashii u duceeyay gabdhihii u duceeyay kulli dhammaan uu duceeyay inuu ilaahay xifdiyo culimada laylan wa naharan wa dhuhran wa asran maldaho intaba ummadda way u digaan way u duceeyaan si wanaagsan wax ugu sheegaan okay su'aalahana rawaa barnaamijka intuu socdo ina isku weydiino maadaama walaalkeen madaxweynihii TikTok waay TikTok dhibaatooyinka ka jiro iyo gabdhaha iyo wiilasha waxyaabaha xun soo bandhigaya ama soo dhigaayo halkee lagu socdaa TikTok ummadda intuu ku wadaa ab kale ma loo heli karaa waxyaabaha saadis weydiina oo laga doodayo barnaamijkan oo hadda bilal bulshada uu ka dhaxalayo waa dood wadaag ee qabatay RTN saarajeenayo marka bilal wuxuu dhahay dadka waa in loogu sheegaa si degan oo hufan waa in wax loogu sheegaa naxariis ku jirto rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dadka u bishaareeya dadka waxa waaye u fududeeya diinta ha ku cuslaanina dadka diinta ha ka erinina laakiin qofkee waaye qofkee waxa soo idil loo sheegaya waa qofka wax ka qaadana wax ka maqlaaya waaye qofka markay culimadu u sheegaan culimadu inay meel soo istaagaan mal dhaho hooy naara galaysa saanaysa naara galay naar meel kale ma lihdadi ma dhahan culimadu kuma dhahan tooba kuma furno culimadu waxay dhahan toobada furan waxay dhahan ilaahay ka cabsada yaa ayyuhalladina aamanu taqullaha ee ka bilaabaan yaa ayyuhalladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara وإذن واجبت يا الذين آمنوا اتقوا الله وردوا إلهي كعب صدا وردوا لفيه النار كبدبات صدا أنت علماء مالين كستو وتاجيهن إيش شيئا داعيال شيخ مصطفى شيخ محافوظ على شيخ شبل شيخ حسين علي جبوتي محافوظ على داعيا يريسك مختار كل حجر تيك توك أنت ما عرفته وحواي وحلي وريلهي كعب صدا وريلهي كعب صدا وروحا إذن كدم به والقيامة إذن كدم به سواء قبري محشر ميزان wax badan anaga dambe alla weyn hor istaagiisa maxaa birinta loo hortagi doona ilaahay intaas oo dhan waa noo la sheega laakiin anaga dhageheena wax ma maqlaan wixii waa ku sii socona waa sii sameeynayna meel u socono ma garanaynaba maxaa ku soo haray culimada si wanaagsan ay wax u sheegaan haddaba su'aalahan ayaa muhiim ah in la isweydiiyo su'aalahan waxa waaye in dacwada dadka loo sheego horta maxay tahay
bilaal wuxuu ani marmaro u sheegnaa waxaan ilaahay ka cabsada waxaan sumcadaada uma roono saan uma roono fardul cayn waaye qof kasta oo muslima fardul cayn ay ku tahay dacwada inuu dadku u sheego oo uu dhaho ilaahay laga cabsado man ra'a minkum munkaran falyuqayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman xumaan haddaa aragta bedeli kartid bedel wanaag ku bedel haddaadan ku bedeli karin afkaaga gacantaada ku bedeli karin afkaaga ku bedel haddaadan afkaaga ku bedeli karin qalbiga ka naca iska dhaaf ya midda kaloo jirto waxaa waaye si wanaagsanaa dadkan wax loogu sheegaa si hoose iyo si kii kaleetaba waxaa jira hadda kahor barnaamij anaga youtube-keyga soo geliya oo wax sheega wanaagsana aakanaha intaas soo saara wax sheega wanaagsan waa qofka see wax ugu sheegay qalada kaga dhaca baraha bulshada dadkan si siriyana wax waa loogu sheegay jahriyana wax waa loogu sheegay waa loo sarbeebay directin waa loogu sheegay intaba wax ma ku qaadanayaan waa soo taagan yihiin ya adaa hadda waxaa leedahay waxaa ku cadaynaysaa reer tiktok oo maqla ilaahay oo markhaati ka noqo bilaal bulshaawi wuxuu dhahay dadkan walba naar galaase tiimbow war raxmadda ilaahay waxaa ka quusaa faajirka oo keli qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim kuwa nafaftooda ku xadgudbay ilaahay wuxuu leeyahay kuwa nafaftooda ku xadgudbay oo dembiyaasha iyo macaasida la imaaday ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo idin uu dhaafaa war walaalahey ogaada haddaa maanta laydin dhahay ama qofu idin dhahay cadaabaa gelaysaa naaraa gelaysaa saanaa gelaysaa war ha quusanin ilaahay qafuur raxiim waa dembi kasta uu dhaafaa dembi kasto ilaahay uu dhaafaa yakfiru liman yashaa wa yucadibu liman yashaa marka dadkaan inta waxaa leedahay waxaa la cadaabta loo soo hormariyay kadib waxaa is dhaheen cadaabta haddaa gelaysiin ya walba naar galaasee tiimbow taas waxaa waaye dad quustay oo ilaahay agtiisa ka quustay oo waxba aan oolin dacwada sheegitaankeeda maxay tahay waa fardul cayn haye yaa sheegi karo qof macsi ku dhex jiro oo macsida ma kaa reebi kartaa dacwada barnaamijkan waxaa usoo qaadana cabdalla ruux camal jaagu jirte heesu dhegaysana macsidiisa gooni waa dembiyada asagu ilaahay ka galaya gooni waa waxyaabaha uu la imaanaya gooni waa laakiin dacwadiisa inaad ka qaadatid oo asana dacwada u gudbiyo fardul caynku iska ridaya dacwadu soo gudbinaayo adiga qaado ama iska dhaaf asaga fardul cayn oo korka ka saarnaa uu iska gudbinayaa balliquu canii walow kaana aaya xasatoob iyo ninkii kii kaleeta maxaa lahaa bilaal bulshaawi waxaa korka idinka saaran inaad dadka wax u gudbisaan wax dadka usoo gudbisaan aa korka idinka saaran ma ahan marka walaalahay inaad dhahdiin marmar oo wax u sheegnaa waa ka celinaa way sameeyaan way quusteen war qofka quustay waa qof isdhiibay waay mar walba wax u sheeg una sheeg mar walba naxariista ilaahay inay furan tahay culimadana waa u gafteen anisaa aaminsanahay muuqaalkaasii dhammaystiranaynaa inkastoo hal su-aal ay noo dhiman tahay muuqaalkaasii dhammaystiranaynaa qaarkood annaga hadda waanadeena qaato xataa wadaado noqdo waa la arkay raalli ahaada asxaabta kale fursad siinana culimmadii oo dhan in la isugu tagaan leeyahay tiktok nin walba oo culimo ee tiktok inuu soo galo hadda hal sheekhaa joogo culimmadii laftirkooda ka jaakiroosa micnaha siduu walaalkii sheega waayo culimmadii laftirkooda micnaha waxay ku sameynayeen cunsuriyad wacdigii naarta inaan laga bilaabin wuu iska jeedinayaa asagoo ku jeedinayaa wuu iska jeedinaya wuxuu leeyahay siduu walaalkayba sheegaa bilaal bulshaawi ma sheegin in culimadii ay ka jaakirayso bal wuxuu sheegay in dadka si wanaagsan wax loogu sheegay xasan toob masuqiista weyn adiga hadalku iska jeedinaya wuxuu ku ridayaa nin wuxuu ka dhigayaa culimada inay ka jaakirayso sheegaa bilaal bulshaawi wuu iska diidi doonaa fiirso culimmadii laftirkooda micnaha waxay ku sameynayeen cunsuriyad wacdigii naarta inaan laga bilaabin oo cunsuriyadna aan lagu sameynin tiktok ciyaal tiktok jooga aan la dhihin tiktokii culimmada ay soo wada galaan kulli ay soo wada galaan sida uu sheekhi Nairobi isku arkeen sheekh Kenyawi waa joogaa sheekh kasto inuu imaado oo meeshii imaado oo alisay aan laga bilaabin naarta in kow fa in macal usri yusran walaalkay wuxuu leeyahay aliftay yaa naarta laga bilaabay sheekada wacdiga yaa la cunsuriyeen wacdi see loo cunsuriyeen wacdi lama cunsuriyeen karee qofkaan runtuu ku sheegaa okay reer tiktok jooga meeshaa neto meeshaa meel lagu halaagsamo waay
meeshaan shuyuuq inta ma uga wici karnabo sababtoo ah waxaa joogo dad dhaqan xun dad dhaqankoodii bedelay dad gaaloobay dad ma aragtay jinsiyadoodii bedelay oo ma aragtay qofka jinsinimadiisa waxaa ka wadaa ninuu ahaa naago iska dhigay naagay ahayd nina iska dhigtay waxyaabahaasaa joogo culimmada looguma wici karo meeshaanito waxaa waaye wacdiyadooda waa lasoo qaadaa waa la keenaa culimmada waxay sheegaan cilmiga iyo dacwada iyo diinta qofka asaga ma u baahan mise iyadaa u baahan war haddii ma aragtay aad dhammaantiin qalbiga ninka ugu caasisan aan noqotiin ilaahay agtiisa maa naqasa fii mulkii shay-an ilaa kamaa yanqusul mixdu idaa udqila albahru xadiidka saas inoo ahaa jeclaa haddii la geliyo cirbadda badda maxay kasoo qaadi waxbo saasoo kaleetaa tiin agteeda ka tiinune marka dadka iyaga ma u baahan dacwadda mise dacwaddaa dadka u baahan taas in la kala saaraa loo baahan yahay dacwaddaa dadka waxay u baahan yihiin dacwadda diintay u baahan yihiin alaa bidikri illaahi tatma'ina alquluub quluubtaa ku degto waa dadka inay iyaga raadsadaan adigana waa dadka inaad u sheegtaa alla ka cabsigaa sheegtaa janaalaa leedahay beejaa leedahay tiktokeraa tahay waxaa lagaa rabaa inaad alla ka cabsiga maalin soo gelisaa ya haddaa maalin kasta soo gelin karin maalin inaad soo gelisaaba aad dhahdaa maanta sheekh hebelaa balami saanaa yeele kanaa sameeyey ya ilaahay dartiisa waxaasa u qabtay inaad dhahdaaba dadka ku dayasho ee kugu u noqotaa sababtoo ah adi madaxweyniha tahay adina nin kaloo caana tahay inaad dadka kugu daydaa inaa kugu dayana waay anaga inaa kugu dayana ku daba raacna waay ma garanaysid culimada meesha ma looga wici karabo meel dhoorsan maaha meel waxa yaala waxa ka dhacaya arkaysid waa culimo meel looga wici karma sheekh qiyaawi yaa sheegtay sheekh qiyaawi 4 saac oo qeyli ah meeshaan ka qeyli hal qof oo isbedela noo sheeg ilaa man raxima rabbi ilaahay qof hanuun la doono moogi maalin walba gabdhaheenu wax u sheega maalin walba gabdhaheenu waaniya maalin walba gabdhaheenu ma aragtay celiya wiilasheenu waxyaabo xun ka reeba waxa isbedela ma heena hadana isbedel ma heeno bal inay sii ziyaadaysaa heena heer ilaa nabi maxamed lacaayaa gaadi ya layfafkeena kuwa kalena ay lacag kusii bixiyaan wali marka walaalahay ma ahan in aan hal dhinac aan bahash iska wada leexinaa anaga aan iska reebnaa aan iska tuurnaa aan u saarinaa culimmadu keliya bale culimmada naftirkooda dadaalkooda ma yaraan mana cunsuriyeen hadalkaas gafu kugu yaa xasatood dadkana si wanaagsan wax waa loogu sheegaa walaalkay bilaal bulshaawi labadiinaba aydadaas inta gafay idinku yihiin haddaba su-aasha kaleeto oo barnaamijka aan kusoo afmeeraayo oo na laga rabo inaan ogaano maxaa waaye sidee mudan in dadka wax loogu sheega hadda ka hor anin waxaa la yidhi meel intuu soo istaagi waxaa la yidhi wax noo sheeg alla ustaad ibraahim ilaahay aku naxariista jannada firdowsana ha ku geeyo ustaadkii waa jeclahay hadda ka hora waxaa la lahay wax sheeg ninbaa waxaa la yidhi wax sheeg qisadaan saa ka maqleen wuu nool yahay magaalada kismaayo jooga ilahay ha u naxariistay naxariista ilaahay mar walba u baahan yahay ilaahay ha u naxariisto jannada firdowsana ha geeyo man callamanii xarfan sirtu lahu cabdan in shaaa baaca wa in shaaa itaqa qofkii hal xaraf ku bara ya addoon waa inaa u noqotaa hadduu rabo ha ku iibsada hadduu rabana ha ku xereeyo marka wuxuu yidhi ninbaa waxaa la dhahay wax noo sheegniyo sheekhi meeshuu ahaaye waxaa la dhahay maante adaa cazumane wax noo sheeg meeshii mimbarkuu soo istaago wuxuu yidhi arkaysaa maqlaysaa wabilaahi tawfiiq bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira waana dhaqaaqe bila aadan nafsadiisa ma aragtay inuu wax fiiriyo wax arko ama uu cibro qaadasho nafsadiisa uga filan u dheh haddaa wax arkayso waxna maqlayso ya wax sheeg waaba ka dhantahabo marka sidee mudan dadka wax in lagu sheega dadka waxaa mudan in marka horeeto waxaa waaye nabi cibaadi anni ana alghafuur raxiim in loo sheega inuu ilaahay ghafuur raxiim yahay dambiyada idin dhaafa oo ma aragtay naxariistiisa ma aragtay ka hormartay caradiisa wax walba ilaahay naxariistiisa ka hormartay ya wuxuu dhahay waxaa jirta islaam loo qoray la dhahay in caqiim ay noqoto caqiim ma dhaleys ay noqoto nabi muuse u tagtay way u dacwootay ilaahay muxuu dhahay muuse uga islaantan caqiima oo qoray islaantii waxaa la yaa raxmaan yaa raxmaan yaa raxmaan yaa raxmaan yaa raxmaan si ugu heysay yaa raxiim ugu heysay ilaahay u bariyeysay raxmadii ilaahay aa qadartiisa ka hormartay wax kale iska dhaaf qadartii aa waxay ka hormartay naxariista ilaahay sida qisadaas lagu wariyo marka
dadkan waa loo sheegaa mar walbo ilaahay inuu raxiim uu yahay, raxmaan uu yahay, maalik uu yahay, wax walba uu awoodi ilaahay uu naxariisto, ya waa loo sheegaa. kadib marka maxaa jirta marka maxaa kaloo loo sheegaa wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim aa loo sheegaa. ilaahay maalintuu ku qabto qabashadiisa inay adag tahay, cadaabtiisana cadaab kulul ee tahay aa loo sheegaa haddii maqli waayaan. ma fahanti walaalkay? marka sidaasa wax loogu sheegaa dadka. marka horeeto waxaa waaye waa diinta macaanideeda iyo ilaahay naxariistiisa loo sheegaa. kadib waxaa loo sheegayaa in cadaabta ilaahay ay adag tahay, qofna uu adkaysan karin, qabashadiisana aan laga fakfakanayn. gadaal dambana walaa yakhaafu cuqbaaha, gadaal cirib dambeedkeedana masiibadu kugu dhacdo ama cadaabtuu ku cadaabo, cirib dambeedkeedana cid oo ilaahay weydiinayso, ilaah maxaasaan u samaysay, ilaah kan maxaa waaye weydiinaysa ma jirto. gadaal dambeedkeedana ma ka cabsanaayo. marka walaalahay waxaa idiin sheegayaa culimmada inay dadaaleen, juhdi fara badan bixiyeen, habeen iyo maalin iyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe ee socoto wacyigelinta, kareebitaanka xumaanta dhalinyarada, waxaasoo idil ay socdaan. balse dhalinyaradiyaan dhaga wax maqlo lahayn, kuwa quustay oo bilaal bilshaa uu sheegaya oo raba naarta iyagoo nool inayba tiimbadaan, ilaahay usoo noqda idin leeyahay. ilaahay qafuur raxiim waay, ilaahay shadiid ulciqaab waay, qafuur raxiim waay, labada waayahay ilaahay, ya laakiin raxmadiisa waxay ka hormartay qadartiisa xataa. bal ilaahay usoo noqda. idinkana dadka way quusteen hadhihine nin weyn oo madaxweyne sheeganayaa tahe intaa dhihi lahayd dadkan way quusteen cadaabtay barbaanba inay galaan intaa dhihi lahayd, waxaa ku wanaagsan dadkan aan waanino, culamo aan u keeno, aan ku wada dadaalno sidii dadkan waxaan loogooda reebi lahaa. bal aan isgarabsanno, fikri saliima inaa keentid aa lagaa rabaa. laakiin kaas maaragta filaari gelgelasho kaaga maaragta dhahay Soomaaliya, kaas kaama fujinaysa adeeray macaane inaa madaxweyne TikTok sheegato kadibna adhaa dadkaanit way u bareereen waxaa inay sameeyaan, cadaabtana diyaaray u yihiin. taas kaama fujinayso, wax sheeg ha ka daalin. balliquu canii walow kaana aaya ku taagno. waxaa waaye intaa taqaano. Abi Hurayra waxaa la dadka wax aqaano wax qarinayo dhibaatada ay leedahay. Abi Hurayra wuxuu dhahay aayaddan markaa maqlo waa iska ilmeyn jira, ilin ma iscelin jirin. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آيات اسمها مقولة إلين ما بقى مسكرينه ما إسعلين جرين. مركا أنت تقانا شيء، أنت حويراتين، أنت تقانو تذكر شيء. حمانتنا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.